والله إلهي عافماد إيموان لكن كوا بدن بالو فيرمي عافماد كيga إنسان كويلا waa 25 jir 3 jeer guursatay iyada oo qabta xanuuno aysan u qarin kuwii guursaday balse dayacay markii ay la guri galeen kadib ladan maxamuud axmed ilinta ayaa ka qubanaysa mana faraxsana waxa ay ku nooshahay magaalada Qardho oo ka tirsan dhulka uu ka taliyo maamulka Puntland hooyadeed way geeriyootay aabaheedna waa da qudhiisu waxa uu ku xanuunsanayaa Hargeysa oo Soomaaliland xarun u ah kaligeed ayuu awlaad ka dhalay ladan iyadoo aan qangaarin ayaa si qasab ah nin loogu guuriyay maadaama aysan gaarin lahaynna garaadkii guri dhaqidda iyo in wax laga dayo toona isfaham waagii halkaas ka dhashay ayaa bilow u noqday nolol mugdi ah oo xitaa gaarsiisay in jirkeeda dhaawacyo loo geysto waa sida ay ii sheegtay xanuunada ay qabto oo sababay in 3 jeer la soo furo oo ninkii guursadana uu ka cararo iyo daryeelka hadda ay uga baahan tahay Soomaalida adigu aad ku jirto ayay inooga sheekaynaysaa ka raali ahaada haddii ilinta ka qubanaysa ee bedesho dareenkiina Soomaaliyeed oo in badan waligeed aan hor fariisan kaamiro laakiin maanta aadanta iyo duruufta jirta awgood ay qabsatay inay soo fariisato in badanna baahiyaheeda qarsanaysay qalbigeeda ku qarsanaysay qofku waxaa muhiim ah inuu jirka ka qurux badnaado inuu qalbiga ka qurux badnaado laakiin qof walba wuxuu dareemi karaa baahida jirta markuu qof soo fariisto kaamiro waxaan ahay gabar sanadkii shanaad ku jirta hooyadii Allah iga qaaday aabahay isaga xanuunsan ku dhalay Somalilandkaas kaliya awlaad iga dhalay faamilka maanta jooga dunida ma jiro ama wax taraya markaan xanuunsan tahay ama weysanta ama bantahay waxa kaliya kula wadaaga dhibkaaga oo qofka dhammaanaya ama jirkaaga runtii in qalbiga jirka laga qurux badnaado wax wanaagsan qalbiga lagu qurxiyo maanta waxaa la noolaa sokor waxaa la noolaa dhiikar waxaa la noolaa neerfe waxaan qofta kaliya maalin 3 saacada ilaa ilaahay intuu qoray maahan alxamdulilah dunida waan ku samaysanahay imtixaanka ilaahay ii keenay ilaahay caafimaad iima waayo wallahi ilaahay caafimaad iima waayo laakiin kuwa badan baa lagu fiiriyay caafimaadkayga insaan ku welina waxaan iga codsanaya 3 goor baan soo maray noloshayda mid walba waxa uu bandhigay xaalad aan ku jiro mid walba uu soo dhaweeyay intuu ay guursan way ugu yiraahday laakiin maalinta noloshayda gudaha u galay waxay igu noqotay noloshayda caqabad markaan sugay farxad markaan sugay garab istaag 12 sano noloshayda kamid maalinta 12 sano ilaa ay maanta noloshayda farxad ma arag taqarada madaxay ku yaala waxa ay geystay oo jirtay oo xadna maanta aan dhacay geystay wada faamilkay kamid alxamdulilah إلهي بقى يقرأ إلهي هو يقرأ إني يعني كرتة إلهي يقرأ إني مسلم كرتة لكن قلت لك وها أصوات فريستة أنا بقى إن إلهي قبل لا يرتوي إن إلهي وجهي كذا ساسوي وجه قرب الله ما ترى والله مصحبة ترى اللي أنت يبدأ زمان وإن قلبي يكدأ إسا وحال غيابة كوا إلى من ذلك إني هذه كيف راح تصح هذا أنا ولا أنا ما كسر هذا واي ما أنت كلا بقلب أدونه وين بونتي وين أنكين إنكم كتمايز سكر بالانولا يكر بالانولا نرفع كاي قصاص أول بعدين نبدأ بصوص الرعاية حبض باقعات أي كده عادي هل حبض باقعات هل كذا القصة صار شركة قصاص ونقول ولا بربرها من مدة برا كاسوي شركة ونقول الحمد لله أبو قرع سنة إلهي وفرس يكين يقوم مدعني بين آذن يعني وحبي ما ترك لكن ما أنت مش تقيس الكل حاول أنكش قيس ما يستو قفت ظروف يسمعها حاول ما يستو مليه قفنا قف حنوسن مرة قف والله أودن من آذن أو الدنيا وكنا وهو ربع قف عاف مع القمر إلهي رب سبحانه وتعالى بين آذن كضفك السنة لكن درهم كي قلبي يقول هل كل بدوي ما أنت واحد من عشر صوم عليك إلهي بأنا صوم عنا قوضة لقي مسلم بانك إلهي باير إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إلهي باير فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ما هم ولا كم كل هذا شيء أيوة كسوم في الصلاة يصدق الله وبخوا ولا كعا ما أنت وحنا ولا لي وكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وحني قاعد إلهي درتي بوجه الله قبيل إني قاعد صنيع وصل معنا لمو إلهي درتي وحني قاعد صنيع ما أنت إنا قرب ولا لمو في رسالة لا دام أنتم ممكن رمضان لو بتشرون وغير كبرنا إن إلهي رب سبحانه قف والله وتعصب لي قف
والبدونية وكنت جاية بوحدة وصح بوحدة ما أنت أولاد ما هيستو أنكو إنك وشو هنون كاسا قفل بيجر رابي ما أنت جواري رشيد لا تسكت لكن ما أنت قفل بويسو هنقول تاجي يقولوا هذا مركو أركو لكن قف درين كان قلبي جيجا متشرو وحكوشرا مركا إن شاء الله قفل بإلهي الأقلب قفل بقلبي جيس إلهي وحكوشرا ورمي أنا مركا وحاروينا ولاتين بس ولاتين ما لم نقول أي بقى بسطة ما دام أنا أخف ليكري السكر لنا استرس أو بحنا هذا استرس على النولاي وهني قرب قرب وهني قرب ولا لم وهني قرب أسلاني من هذه الحجرة وحيو قبتان بوجه لا واي ما عنده حقيقة قبتان أباهن إذن كل بركة ما نبهل سنين كأباهن أفضل بمان توه بحثه وبميل وياله واي الدنيا ذا أيام إسكاكوبا وأيام معدودات قفنا وسنا دون كان وسكواري وجو قف قواري نبي محمد بلغوا إنك ميت وإنهم ميتون dareen marka waxa beeranta maanta gabar walaashaaya oo ilmeynaysa oo adduunka ku kula nool oo magaca Soomaalina islaanimo ku kula wadata ya maanta waa garanaya dad badan oo waxay dhaayaan nabi maxamed Facebook waxa soo fariistay social media laakiin dhibaatada ay haysato dareemi karaan ani u dareemi kara waxa dakhal wajigay ku yaala waa jidin nabi tawajir igu sii igu geystay maanta wajigi ma sheegan karo ila awood badan marka bilasxaan ilaahay dadka waxa dhakhtar ku tago iibgeey dhakhtar meel iibgeey intaas badad islaama oo mucaawinaada oo muxsiniinaad tii xididka islaamka xula baxa ani inta sayniga cusubnay bifadla qof qalbigiisa kama turjumi karo marka dhaawacanta oo markaas buugaysantahay dunida dhanba markaad buugaysantahay waa kuwa kaliya laakiin marka aad qoslayso qof walba uu kula qoslaya wana kula dhool cadeynaya laakiin ma jiro xaqiiqada marka ooyni qof kula ooynaya maanta ma soomo ما أودي كنا سكرتين وين عسى وحد كذا بحي ما أود قبل على نور ما هقف أهل مقلا نور إلى هدرتي ولا نور كلاس بيا ما أنت ما أود كنا مركب ولا عليها بفضل إلى هدرتي وهكذا إني مرة وما أنت والله وفضل بعد رجل هلا عاوي أنا ورياش وجيتني تيفي أنا رفقي قرصني لكن وقرصي ويا حقيقة مركب إلى هدرتي بوجه الله وهي وقبت بوجه الله إنكم أنا مرة يقرأ هذين قبل يقول هذين الصومالي اللي بيرها ترتيبات وحين يقرأ إن شاء الله جزاك الله ladan maxamuud axmed oo ilintu ka qubanayso waxa ay bulshada Soomaaliyeed kaga baahan tahay caawin degdeg ah si nolosheeda ay farxad u hesho maadaama ay noo sheegtay in sidii ay u qaan gaartay aysan helin wax farxad ah